kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Dalabley Media waxaan idin la wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo guud ahaanba caalamka. Maanta waxaan warbixinteena diiradda ku saari doonaa xiisad gobolka ka qaraxday Ethiopia, Djibouti, Soomaaliya iyo sidoo kale gobolada waqooyi ee Somaliland oo ay xiisadii ka dhalatay aqoonsiga maamulka Israa'iil ee Somaliland hawada ku sii shareertay. xiisad siyaasadeed oo aad u culus ayaa ka aloosan geeska Afrika taas oo si gaar ah u dhexmartay dalalka Ethiopia, Djibouti, maamulka Somaliland iyo sidoo kale Soomaaliya. xiisadan waxa ay salka ku haysaa murano la xiriira dekado, xuduudo, aqoonsi siyaasadeed iyo loolan istiraatiiji ah kuwaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay amniga iyo xasiloonida guud ee gobolka. haddaba warbixinteenna diiradda ayaan ku saari doonaa. soo dhawaada haddii aad inagu cusub tahay channelka subscribe inoo saar, muuqaalkii noo share garay, aragtidaadana inagula wadaag qaybta faallada. mahadsanidin. sida aad horudhaca ku maqlayseenba xiisad culus ayaa waxa ay ka qaraxday gobolka Ethiopia, Djibouti, maamulka Somaliland iyo sidoo kale Soomaaliya ayaa waxa ay qarka u saaran yihiin in marqura uu dagaalka dhex qarxo. xiisadda ayaa hadda waxay ka taagan tahay magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag, waxaana soo fadhiya ciidamo ka kala tirsan maamulada Khartoum State iyo sidoo kale maamulka Somaliland. maamulka Khartoum State ayaa u diyaar garoobay dagaal ka dhan ah oo ay soo abaabuleen ciidanka maamulka Somaliland oo halkaasi ku sii qulqulaya, waxaana la arkayaa ciidamo aad u tiro badan oo maamulka Somaliland hoostaga kuwaasi oo ku sii qulqulaya magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag. Ceerigaabo waxaa hadda gacanta ku haya ciidanka Khartoum State, waxaana ciidanka maamulka Somaliland ay doonayaan inay gabi ahaanba gacanta ku dhigaan. waxaana sidoo kale la sheegayaa in maamulka Puntland uu isaguna qorsheynayo inuu garab siiyo ciidanka maamulka Somaliland si ay ula wareegaan magaalada Ceerigaabo. maamulka Puntland ayaa waxa uu dhaliishan yahay maamulka SSC Khartoum, waxaana ay doonayaan in uu meesha ka baxo gabi ahaanba maamulka SSC Khartoum oo leh madaxweyne iyo sidoo kale golo wasiiro iyo sidoo kale xildhibaano. Puntland ayaa dhaliishaneed aasaaskii maamulka SSC Khartoum, waxaana ay marar badan sheegeen in maamulka SSC Khartoum ay doonayaanba in uu meesha gabi ahaanba ka baxo. Cabdiraxmaan Faroole oo ka tirsan senatarada aqalka sare ee dowladda Soomaaliya mar uu ku sugnaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland waxa uu sheegay in ay doonayaan in gabi ahaanba meesha laga saaro maamulka SSC Khartoum oo isagu si toos ah xiriir u leh dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaana ay diidan yihiin xiriirka kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Khartoum State. Dani iyo Faroole waxa isku baheysteen in gabi ahaanba meesha laga saaro maamulka SSC Khartoum, sidoo kalena uu meesha ka jiro kaliya maamulka Somaliland iyo sidoo kale maamulka Puntland. haddaba xiisadda haddan taagan ayaa si weyn waxa ay u xoogeysatay kadib markii Ethiopia ay shaacisay rabitaankeeda ah inay hesho marin badeed rasmi ah, taas oo Addis Ababa ay u aragto arrin istiraatiiji ah oo lama huraan u ah kobaca dhaqaalaha iyo amniga ee dalkaasi Ethiopia. talaabadan ayaa keentay in indhaha lagu wada jeediyo dekada maamulka Somaliland iyo sidoo kale dekada Djibouti, gaar ahaan Berbera iyo Djibouti Port. Somaliland ayaa noqotay xudunta xiisadda kadib markii ay heshiisyo la gashay Ethiopia kuwaas oo ku saabsan isticmaalka dekada Berbera iyo iskaashi amni. tani waxay Somaliland u aragtaa fursad ay ku xoojinayso raadinta aqoonsi caalami ah oo ay ka hesho dalalka caalamka, halka Ethiopia ay u aragto waddo ay kaga baxdo go'doomida dhanka badda. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si adag uga hortimid heshiisyadaas iyadoo ku tilmaamtay mid xadgudub ku ah madaxbannaanida iyo midnimada dalka. dowladda waxay ku adkaysanaysaa in Somaliland ay weli ka mid tahay dalka Soomaaliya, isla markaana aanay xaq u lahayn in ay gasho heshiisyo caalami ah oo noocaas ah. arrintan ayaa dhalisay hadallo kulul, digniino diblomaasiyadeed iyo dadaallo ay Soomaaliya ku raadinayso taageero caalami ah. haddii aynu eegno dalka Djibouti oo ah waddan muddo dheer ka faa'iideysanayay dekadiisa isla markaana isticmaalkeeda ay ku xirnaayeen dowladda Ethiopia, ayaa iyaduna waxa ay dareentay cadaadis iyo walaac haddii Ethiopia ay hesho marin kale oo badeed, gaar ahaan Berbera. Djibouti waxay ka cabsi qabtaa in hoos u dhac uu ku yimaado dakhligeeda dekada, sidaas darteed Djibouti waxay qaaday tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ay ku ilaalinayso danaheeda istiraatiijiga ah. xiisaddan ma aha mid ku ekaanaysa afarta dhinac oo kaliya, balse waxay saameyn ku yeelan kartaa ammaanka geeska Afrika, ganacsiga caalamiga ah iyo xasiloonida badda cas.
dalal iyo quwado waaweyn ayaa si dhow ula socda xaaladda iyadoo laga cabsi qabo in khilaaf siyaasadeed uu isu bedelo xiisad amni ama mid military. haddaba maxay tahay halista iyo fursadaha jira ee la xiriira arrinkan? khabiiro badan ayaa aaminsan in haddii aan la helin wadahadal iyo xal diblomaasiyadeed, xiisaddan inay horseedi karto kala fogaansho siyaasadeed oo sii kordha, cadaadis dhaqaale iyo mid amni, iyo sidoo kale faragelin shisheeye. dhanka kale, haddii si xigmad leh loo maareeyo, waxaa jiri kara iskaashi dhaqaale oo gobolka oo dhan faa'iido leh, nabad iyo xasilooni waarta, iyo fursado horumarineed oo wadajir ah. xiisaddan u dhexaysa Itoobiya, Jabuuti, maamulka Somaliland iyo sidoo kale Soomaaliya waa mid muujinaysa sida ay isku dhexgaleen siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga Geeska Afrika. mustaqbalka gobolka waxa uu ku xirnaan doonaa go'aamada maanta la qaato iyo sida ay hogaamiyayaasha u maareeyaan khilaafka taagan. Itoobiya waa waddan leh in ka badan 120 milyan oo qof, balse ah dal aan bad lahayn tan iyo markii ay Eritrea ka go'day 1993. tan iyo xilligaas Itoobiya waxay si weyn ugu tiirsaneyd dekedda Jabuuti, taas oo ay ka marto in ka badan 90% ganacsigeeda dibadda. arrintan ayaa Itoobiya u aragta khatar istaraatiiji ah, gaar ahaan marka ay timaado amniga qaranka, dhaqaalaha iyo madaxbannaanida ganacsiga. sidaasi darteed, Addis Ababa waxay sanadihii dambe si cad u muujisay rabitaankeeda ah helidda marinbadeed rasmi ah. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay dal weyn sida Itoobiya inaysan sii ahaan karin mid ku tiirsan hal dekad oo dal kale leeyahay. hadalladan ayaa walaac weyn waxa uu ka abuuray dalalka dariska ah, gaar ahaan Soomaaliya iyo Jabuuti. Itoobiya waxay indhaha ku haysaa dekedda Berbera ee maamulka Somaliland, ikhtiyaaro kale oo ku yaala badda cas iyo sidoo kale badweynta Hindiya. tani waxay isu beddeshay arrin siyaasadeed oo qaraxday halkii ay ka ahaan lahayd arrin ganacsi oo keliya. Somaliland ayaa ku dhawaaqday gooni-sutaag 1991, balse aan weli helin aqoonsi caalami ah marka laga reebo Israa'iil oo toddobaadkii la soo dhaafay u aqoonsaday dal madax bannaan. waxaana xiisaddan ay Somaliland u aragtaa fursad dahabi ah oo ay ku kasban karto taageero caalami ah, albaab ay uga faa'iidaysan karto dekedda Berbera inay ku hesho madax bannaani. heshiisyada ay Somaliland la gaartay Itoobiya ayaa la rumaysan yahay inay ku jiraan isticmaalka dekedda Berbera, iskaashi dhinaca amniga ah, fursad dhaqaale iyo maalgashi, iyo sidoo kale aqoonsi la siiyo maamulka Somaliland. laakiin heshiisyadan waxay Somaliland gelinaysaa is-horfadhi toos ah oo ay la gasho dowladda Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si cad u sheegtay in Somaliland ay weli ka mid tahay Soomaaliya, in heshiis kasta oo ay gasho uu yahay mid sharci darro ah. waxaana sidoo kale dadaalo diblomaasiyadeed sameeyey dowladda dhexe ee Soomaaliya, cabashooyin caalami ah iyo sidoo kale la tashiyo ay la samaysay ururada gobolka iyo caalamka ayay sii samaysay dowladda Soomaaliya. haddaba muxuu yahay doorka beesha caalamka oo ay ka mid yihiin qaramada midoobe, midowga Afrika iyo sidoo kale dalalka waaweyn? waxa ay si dhow la socdaan xiisaddan iyagoo ku baaqaya wadahadal, xal diblomaasiyadeed iyo in laga fogaado tallaabooyin halis ah, laakiin weli xal cad lama gaarin. xiisadda u dhexaysa Itoobiya iyo Jabuuti iyo maamulka Somaliland iyo Soomaaliya waa mid ka turjumaysa loolan awoodeed, dan qaran iyo siyaasado isdiidan. mustaqbalka gobolka wuxuu ku xiran yahay xigmad hogaamineed, wadahadallo dhab ah iyo ixtiraamka madax bannaanida dalalka. haddaba guud ahaan saaxiibayaal, warbixinteena inta ayaa kusoo koobaynaa. waxaan idinka codsanaynaa haddii aad inagu cusubtahay inaad channelka subscribe inoo saarto, muuqaalkii inoo share garayso, aragtidaadana aad inagula wadaagto qaybta faallada. mahadsanidin.